سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلانتي وعنا وناكسن إذا لهانتين بميل كستا يسكستوا نولا سعوتانبا وحان دلنا نيالكني وتلفزيون كعالمي سوماليدي إيداajaa TV gaaraan stuudiyo xarunta saddexay magaalada Jigjiga daawadayaal waxaan soo gaarnay hadiyad waqtigan oo kala taan uga barateen inaan si toos ah wadidii ku soo gudbino war wixii naga soo gaaray deegaanka iyo dalkaba warkayga waxa idin qaada dhigi doona waanigu waa risaq Idaajaa qodobada wararkan idinka hayno deegaanka iyo dalka kuwada ugu doorka roona waxa kamid ah shirkii qiimeynta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay ee shabakada shaqo abuurka iyo damaanada cuntada ee magaalada Jigjiga ayaa ka furmay madasha kulamada ee xafiiska maaliyadda heer deegaan kooxaha ka socda macadka cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo mashruuca horumarinta bulshada reer guuraaga ee BCDB ayaa soo kormeeray mashruuca tijaabinta beerista bariiska ah ee laga wado tuulada Koobane ee degmada Mustaxil Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkan Itoobiya ayaa shacabka deegaanka Bishaangul ugu baaqay inay ilaashadaan mashruuca biyo xidheenka weyn ee Abaay daawadayaal qodobadaasi iyo xubintii ciyaaraha ayaad ku daawan doontaan intaynu ku guda jirno xilli tabinteena wareed markale daawadayaal isku soo noqod wanaagsan haatanna ku soo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan shirkii qiimeynta waxqabadka 6 bilood ee la soo dhaafay ee shabakada shaqo abuurka iyo damaanada cuntada ee magaalada Jigjiga ayaa ka furmay madasha shirarka ee xafiiska maaliyadda heer deegaan warbixin umurtaasi ku saabsan waxa inoo soo koobaya wariye Maxamed Cumar Cilaabe waxaa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ka qabsoomay kulan lagu eegay mashruuca shaqo abuurka iyo damaanad qaadka cuntada ee magaalada Jigjiga ee Urban BSMB 6 bilood la soo dhaafay isbedelkii laga keenay waxaana kulankani ka soo qayb galay wasiirka xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee deegaanka mudane Axmed Cabdi Maxamed mas'uuliyiin ka socday qaar kamid ah xafiisyada heer deegaan ee bahwadaadta la sektorkan shaqo abuurka iyo damaanad qaadka cuntada ee maamulka magaalada Jigjiga mas'uuliyiinta maamulka magaalada Jigjiga iyo xubno ka socday federaalka oo u hurgalayay xaaladda dhabta iyo isbedelka laga keenay bilyan soo dhaafnay
sektarkan shaqa abuurka iyo damaanad qaadka cuntada ee arba BSMB ee maamulka magaalada Jigjiga iyadoo mashruucani ay ka faa'iideystaan 4200 oo ka helay shaqa abuur iyo 800 oo direct support ama taageerada tooska ee ka faa'iideystay mashruucan ayaa waxa kulankan ogolaan furay wasiirka xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane Axmed Cabdi Maxamed shirkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay sidii aan u dhageysan lahayn waxqabadkii mashruuca ee 6 bilood laga soo gudbay mashruucani waa mashruuca Urban BSMB-ga oo ka howlgala magaalada Jigjiga saddex xafiis ayay mas'uuliyiintan naga soo booqdeen xafiiska maaliyadda heer federaal World Bank iyo Federal Food Security saddexda waaxood bay ka kala socdaan waxay eegayaan performance-ga 6 bilood laga soo gudbay iyo mashruuca qaabka maxaan ku dhaday uu amba qaaday shaqooyinkii uu yaalay mashruucu waxa weey mataqaana ahmiyadda uu inoo leeyahay waan garanaynaa waxa weey mataqaana saddex qabalay oo qabalaha maxaan ku dhaday 19-aad 14-aad iyo 11-aad ayaa pilot test hadda maxaan ku dhaday uga bilaabay 5,000 oo ruux ayaa ka faa'iideysanaya 5,000 ruux waa 4,200 oo ruux oo public work oo shaqaysanaya 4,200 ruux oo public work oo shaqaysanaya iyo 800 oo direct support markaan leenahay oo dadka curyaaminta dadka lixaad kala marka sidii loogu talagalay ayuu maxaan ku dhaday u hirgalay ama uu inoogu fulay marka presentationka markaan dhageysana kadib ayaan wixii suggestion ama reflection ama maxaan ku dhaday comment ama maxaan ku dhaday question ayaan maxaan ku dhaday yaan isweydaarsanayna dan waxay noqon in field visit la sameeyo goobihii la tago presentationka waxa lagu soo jeediyo batagbar maxaan ku dhaday inaan qabalayadii tagno la soo eego shaqooyinka u qabsoomay mashruuca iyo inta kulankaasi socday mas'uuliyiinta wakaaladda shaqa abuurka iyo damaanad qaadka cuntada ee maamulka magaalada Jigjiga ay ku soo bandhigeen goobtaasi 6 bilood dambe isbedelkii laga keenay iyo qaabkii looga faa'iideeyay bulshada fikra kala duwan laga dhiibtay loogana dooday sidii barnaamijkan Urban BSMB halkaas uga sii amba qaadi lahaa iyadoo muddooyinkan soo dhaafnayna waay aragnimadii laga dhaxlay laga qaadanay khibrado kala duwan oo sektarkani u noqon lahaa mid taabagala ayaa waxaan gabagabadii wax ka weydiinay maareeyaha wakaaladda shaqa abuurka iyo damaanad qaadka cuntada ee maamulka magaalada Jigjiga mudane Cabdilaahi Cabdi Cilmi oo tilmaamay in sektarkan shaqa abuurka iyo damaanad qaadka cuntada ee maamulka magaalada Jigjiga oo noqday mid taabagala isla markaana muddooyinkii dambe isbedel laga keenay kulankan waxa mid sii xoojinaya waxna la iska weydiinayay waxyaabii taabagalay iyo waxyaabaha u baahan si loo turxaan bixin lahaa isagoo hadalkiisa si watana uu sheegay mas'uulku in sanadkan lagu soo kordhin doono 5 qabale oo kamid ah maamulka magaalada Jigjiga halka hadda ka hor ay 3 qabale ka faa'iideysan jireen mashruucani taasina qayb ka noqon doonto dadaalada uu mashruucani uu ku dhimayo saboolnimada iyo kordhayda shaqa abuurka mashruucan oo hadda magaalada Itoobiya magaalada Jigjiga ma Itoobiya dhan Afrika ba ku cusub laakiin hadda wajigiis hore laga bilaabo 12 magaalo Itoobiya ka kooban kamid tahay magaalada Jigjiga magaaladaas oo hadda mashruucan loogu tal dadka saboolka ee danta yar in looga faa'iideeyo marka waxa weey mashruucan qofka uu shaqaysanaya maalinkii yoomi lacag baa loo qorayaa lacagta marka bangiga boog baa nooga furno loogu kaydinaya kaydka marka mashruuca qofka 3 sano ku jiraya lacagta maalinkii qaadanayo 20% uu kaydsanaya 3 sano markuu mashruuca ka qabli jibiyo 80% dawladana kabis bay ugu sameynaysaa kadib marka qofkan waxa laga tashanaya wuxuu ku firfircoon yahay qaab ganacsi haduu yahay hadafka guud uu yahay markan ka hadlayo in la dagaalamayo saboolnimada kooxa ka socday macadka cilmi baarista ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo mashruuca horumarinta bulshada reer guuraaga ah ee BCDB ayaa soo kormeeray mashruuca tijaabinta beerista bariiska ee laga wado tuulada Koobane ee degmada Mustaxiil warbixin murtaasi ku saabsan waxayna soo koobaya wariye Farax Bade macadka cilmi baarista ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuu guntiga u gaabsaday sidii uu soo saari lahaa zarac tayo leh muddo koobanna ku bixi kara oo ay bulshadu beerato maadaama qorshaha xukuumadda sanadka 2010 uu yahay in xoog la saaro wax soo saarka khayraadka xoolaha iyo beeraha muddo bilaa ayaa laga joogaa markii khubaro ka socota macadka cilmi baarista ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay tababar la xiriira beerista calafka xoolaha iyo bariiska siiyeen 25 xubnood oo hal iskaashatay isugu xidhan oo ku dhaqan degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle si ay u beeraan dalag tijaabo ah oo isugu jira 3 nooc oo bariis iyo 4 nooc calafka xoolaha ah wuxuuna hadda marayaa dalagaasi waqtigii la hubin lahaa natiijadii ka soo baxday haddaba waxaa booqday qabalaha Koobane oo ka tirsan degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle oo ah goobta ay iskaashatadana ka beereen dalaga tijaabada ah koox ka socota macadka cilmi baarista ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo koox ka socota mashruuca horumarinta bulshada reer guuraaga ah ee BCDB oo iyagu maalgeliyay tijaabada dalagan
waxayna tijaabo kadib ka warbixiyeen iyagoo la hadlay warbaahinta deegaanka hormuudka labadani kooxood ujeedada socdaalkoodan isla markaana sheegeen in tijaabada ay sameeyeen ay ka soo baxday natiijo wax ku ool ah. ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa inaan soo saarno oo dadkana oo gaarsiino oo tababarna siino midhooyin hadda iyo xooli iyo dhinaca kaleba wax tayo leh inaan deegaanka wada gaarsiino. waxaan u soo booqanay anagoo ka kooban xafiiskii mashruuca BCDB herdeegan agaasina ka socda iyo cilmi baaristii ayaa waxaan maanta halka ku qaadanaynaa inaan tijaabadii nooca ahayd ee awal la tijaabiyey inta muddada la soo waday mara dhalkeedii baan maanta aan u taaganahay tanna waxaad oran kartaa waa mid mataqaanaa taabagal ah bulshada deegaanka gaar ahaan degmada Mustaxiil qabalahan koobane iyo guud ahaan deegaankaba arrin hami wanaagsan leh oo ku dayasho leh oo u baahan in la dhiirigeliyo iskaashatada fulisay tijaabadan iyagoo adeegsanaya aqoonta ay ka dhaxleen xirfadlayaasha macadka cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaadheen siyaas awgeedna ay gaarsiin doonaan aqoonta la baray bulshada kale ee ku dhaqan degmada Mustaxiil iyagoona sharaxaad dheeri ah ka bixiyay qaabka ay u barteen si loo beero dalagan iyaguna ay u beereen. waxaan hadda aan cadeyn ku bixinaynaa bariiska qaabka hadda oo u baxay inaad ay qaab muuqato yahay kaasoo maanta oo taagan yahay waqtigii go'itaanka ee kamardhalkii bariiska laga faa'iideystay faa'iidadiisii in la muujiyo la rabo annagoo taa ayada hadda ay cadaan u bixinayno hawlihii aan qabanay ee noogla tababaray ina hadda aan guusheedina gaarnay waxaan ku mahadinaynaa deegaanka iyo dalkeenna bariiskan maalinkeena loo keenayo waxaan aaminsanay inuu wadanka ka bixiyo haddana waxaan aaminay in wadanka aska baxayo inta nagu soo taakuleysina aad bay u mahadsan tahay. bariisku dhulku uu naloogu tababaray oo iska baxo waa dhulka carramadowga ah waxa ku xiganaya dhulka carramadowga iyo carracadka isugu jira labada ciid labada nooc kala baxda ayaa sabta bariisku ayaa naloogu tababaray oo iska baxa koow marka hore dhulka intaanad shaqo kale ka gelin waa inaad geed faagta markaad geed faagto geedda aad bixisa aad nadiifisa intaad u qaadato birqodashada intaad u qaadato aad nadiifisa aad sinta dhulka markaad sinta yaa jeexjeex markaad jeexjeexi kartaa ood qashin qaado ood habeys matalan dhulkii dhul adagaas kugu noqtay oo beertii jilcanad waad weysay dhulkiina gow buu noqto birtii way gali weysay waxa la yeeli oo tababaraha aad nooga tababaray dhulkii adkaa biyaa lagu sii dayn 10 cisho markaas joogo oo dhulkaas iska dhigo wax markaas jilcan yaa la qardayni ayadoo jilcana bariiska hadana loo jeexi noocaana waa naloogu tababaray. mashruucan tijaabada ah ay iska kaashanayaan macadka cilmi baadhista iyo mashruuca BCDB ayaa wuxuu ka hirgalay 11 degmo oo kamid ah degmooyinka deegaanka oo ay 3 kamid yihiin gobolka Shabeelle waana mashruuc faa'iido weyn u leh bulshada maadaama iyagoon intii la baro xirfadii beerista haddana laga caawinayo dhankii shinnada iyo dhankii qalabkii kale. tababar kor loogu qaadayo tayada waxbarashada ee barayaasha deegaanka ayaa u furmay qaar ka mid ah barayaasha degmooyinka deegaanka warbixin muurtaasi ku saabsan waxa inoo soo koobaya wariye Lumaan Cadde. tababarkani oo ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada isla markaana uu soo diyaariyay xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana ay ka faa'iideysanayaan 100 bare oo ka kala yimaaday 18 degmo oo kamid ah degmooyinka deegaanka ayaa ka furmay hoolka shirarka ee kuliyadda macadka maarinta iyo adeegga shacabka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga waxaana furitaankii tababarkani ka hadlaya kusimaha madaxa xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Muxyidiin Sheekh Cabdiraxmaan kaasi oo na tilmaamay inuu tababarkan yahay mid muhiim ah loona baahan yahay inay tababar qaatayaashu sidii loo baahnaa ay uga faa'iideystaan gaarsiiyaan casharada halkan ay ka dhaxleen goobihii ay ka kala yimaadeen. ujeedada koowaad ee tababarkan garanaysa la isugu yeedho hogaaminta kala duwan ee waxbarashaduna waxa weeyaan in kor loo qaado tayada iyo gashiga waxbarashada ee la siinayo ma garanaysaa jiilka ku jira dugsiyada heerkooda koowaad ama afka qalad 1 up to 4 ka lagu dhaho first cycle ka lagu dhaho ma garanaysaa in la siiyo gashi waxbarasho oo tayo leh maadooyinka xisaabta luqadda afka hooyo ee afka Soomaaliga ma garanaysaa cilmi deegaanka iyo ma garanaysaa luqadda Ingiriiska oo ay u wareegaan second cycle ka ama heerka labaad ee dugsiyada hoose dhexe 5 to 8 ka ay u wareegaan ayagoo ka dhameystirantay xagga fahanka luqadaha kala duwan iyo xagga fahanka ma garanaysaa maadooyinka kala duwan haystana gashi buuxa oo ku aadan xagga tayada waxbarashada.
dhankiisana waxaanu waraysi gaara aanu la yeelanay isla markaana faahfaahin dheeraada naga siiyey tababarkani garwadeenka geedi socodka imtixaanaadka iyo daraasaadka ee xafiiska waxbarashada ee dowladdeegaanka Soomaalida iyo Itoobiya mudane Nuur Aadan Ciise waxa lagu talagalay moogta muxuu bariyaasha marka la tayeeyo inay moogta muxuu sii tayaan moogta muxuu ardayda waxbarashada moogta muxuu hadii ay xubsada ay qaadanayaan moogta oo soo saaraan marka ardayda tayeysan taas marka ujeedada moogta muxuu hadii tababarka ka qayb qaadayaasha moogta ka soo qayb qaadanayaan waa 100 bara ka soo qayb qaadanaya moogta waa 100 moogta muxuu macallin weeyaan waxay kalimaad marka 18 degmo hadda ka koobnaa muxuu deegaanka ka kooban yahay si kastaba ha ahaatee xafiiska waxbarashada ee dowladdeegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ayaa sanadihii u dambeeyay wada dadaalo xooggan oo kor lagu qaadayo tayada iyo tirada waxbarashada iyadoo macallimiinta wax ka barta dugsiyada deegaankana la siinayo tababaro gaaban iyo kuwa dhaadheer oo isla markaana lagu kabcinayo garaadkooda aqooneed si ay u soo saaraan arday tayo iyo cilmi leh tababarkanina waxa la filayaa inuu socon doono muddo 5 cisho ah waxaana tababarkani cashiro ka bixinaya khabiir ka socda heer federaal warka dalka رئيس الوزراء كحجينك جمهورية الديمقراطية فدرال كدلكن إثيوبيا أي شعب كديجان كبيشانقول وجباقي إن إلى شدان مشروع بيحرين كوين أباي إبراهيم عبد موسى يفافين توركنا إنه طلعنا وفد هير ديغان يهر فدرال او هوغاميني رئيس الوزراء كحجينك جمهورية الديمقراطية فدرال كإثيوبيا مدن دمقة مكونن ayaa wada xaajood la qaatay shacabka degmada Guba ee deegaanka Benishangul Gumus waxa uu aad uga mahad celiyay dareenka la haasho ee shacabka degmada waxa uu yidhi የኢትዮጵያ ህዝቦች ፊታቸውን አዙረው የጋራ በቀያ ፕሮጀክታችን ብለው ያላቸውን እየወረወሩ በቅርብ የሚመሩትና የሚከታተሉት እናንተ ደግሞ ከውያችሁ እንዲህ አይነት ፕሮጀክት ለሀገራችን ህዝቦች አበርክታችሁ የዚህ ህዳሴ ዘመን በልዩ ሁኔታ ተጠቃሾችና ልትደሰቱ የሚገባችሁ ናችሁ shacabka Itoobiya waa inay u soo jeensadaan sidii wax walba ugu hori lahaayeen mashruuca dib u curashada ee Abaay shacabka degmada Guumaana waa shacab aad loogu farxo sidoo kale shacabka degmada Guuba ayaa madaxda ka codsatay in loo sii daayo biyaha nadiifta ee dadka iyo waliba horumarinta asaasiga oo dhan waxa isaguna dhankiisa ka hadlay wasiirka arrimaha federaalka iyo horumarinta reer guuraaga mudane Kaasha Takla Birhaan waxa uu sheegay inay dawladdu si dhaqso ah u xallin doonto waxyaabaha ay shacabka degmada Guuma ay tabayaan ugu dambeyntiina madaxweynaha deegaanka Benishangul Gumus mudane Ashadle Xasan ayaa dhankiisa sheegay inay heshiisyo kala duwan la saxiixdeen wakaalada dhismaha biyaha ee deegaanka Benishangul isla markaana loo sameyn doono shacabka biyo-gelin degdeg ah waxa uu yidhi አሁን ኮንትራክተሩ ሙሉ በሙሉ ለቤንሻንጉል ውሃ ስራዎች ኢንተርፕራይዝ ተሰጥቷል ሁሉም ነገር አልቋል waxaan qandaraas siinay wakaalada dhismaha biyaha hawshiina waa gabagabo oo meelo fog bay biyaha dadka iyo xoolahaba ka soo jiidanayaan waana dhaqsan doonaa daawadayaal haatan aynu u talowno xubintan ciyaaraha oo inoo soo diyaariyay wariye Maxamed Deeqamaan kooxda Chelsea ayaa si rasmi u xaqiijisay inay heshiis rasmi ah la gaartay kooxda Real Madrid iyadoo kala heshiisay saxiixa weeraryahanka xulka qaranka Spain ee Alfa Morata. Chelsea ayaa ogolaatay inay bixiso lacagta lagu burburin karo heshiiska Alfa Morata xidigan ayaa la filayaa inuu soo gaaro London si uu kooxda ula gaaro heshiiska shakhsiga sidoo kalena ugu maro tijaabada caafimaadka. Morata ayaa la filayaa in kooxda Chelsea uu saxiixo 5 sano kadib markii kooxda Chelsea ogolaatay inay bixiso lacag dhan 7.6 milyan euro oo Real Madrid u sheegtay inay bixinayso. Morata ayaa weerarka kooxda Chelsea ka bedeli doona weeraryahanka ay isku xulka yihiin ee Diego Costa kadib markii Antonio Conte uu sheegay in aanu ku jirin qorshihiisa xilli ciyaareedka cusub. Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegay in kooxda Manchester City dhigeeda Chelsea ku garaacday saxiixa xidiga daafaca uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Danilo. Xidiga reer Brazil ayaa isku diyaarinaya inuu soo dhaqaaqo kooxda Manchester City inta lagu guda jiro xagaaga kadib markii kooxaha Manchester City Real Madrid ka heshiiyeen saxiixa xidigan. Wararka qaar oo ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegay in labada kooxood ay ka heshiiyeen in xidiga reer Brazil ku biiro kooxda Citizens isagoo ugu soo dhaqaaqi doona lacag dhan 30 milyan euro iyo 5 milyan oo dheer ah oo ku xiran qaab ciyaareedkiisa. Danilo ayaa la filayaa in kooxda Manchester City qalinka ugu doogo heshiis 5 sano isagoo xidigan u safri doona America si uu jimcaha u tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda Manchester City ayaa saxiixa xidigan ku garaacday kooxda Chelsea oo adeegiisa u dhaweed maalmihii la soo dhaafay kadib markii kooxda City ay Chelsea ku loolameen saxiixa xidigan.
daawadayaal xubintaasi uu inoo qaadaadhigayay wariye maxamed deeq qamaan ayaa ugu dambeeyey warar wixii naga soo gaadhay deegaanka iyo dalkaba warkeyga waxaa si toos idinku qaadaadhigayay waa anigu ah cabdirasaaq ibraahim Idaajaa aniga guud ahaanba asxaabtii kale ee gala qayb qaadatay tabinta warkan waxaanu si isku duban idinku dhaafaynaa idinkoo diyaar garoobaya qaybaha kale oo TV-gu idinku talagalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh